aad ayuu baadsanyahay shahaadooyin abaalmarin ah oo loogu talagalay dhowr qof oo Soomaaliyeed in laga siiyo shahaadooyinkan waxaa saxiixay ex prime minister mudane Cabdiweli ayaa gacanta ka saaraya asaga ayaana guddoonsiinaya qofka ugu horeeya aan u yeerayo abwaanka qaranka Soomaaliyeed abwaankii hore ee Soomaaliyeed Bare Maxamed Fiido oo ahaa muwaadin Soomaaliyeed muddo badan u taagnaa isku duubista online-ta bulshada Soomaaliyeed haddii uu goobta joogo ha imaado hadduusan imaanayna waxaan ugu dhiibayaa Cabdiyare ayaan ugu dhiibayaa fanaanka qaranka Soomaaliyeed ayaa matalaya hadduu Bare joogo waxaan leeyahay kaale umo hadduu joogin goobtana waxaan ugu dhiibayaa Cabdiyare mudane iga guddoon on behalf of this shahaadadan waxaa loo siiyey isku duubnida abaabulka isu keenidda iyo midnimada Soomaaliyeed wuuna ku mutaysan yahay maadaama uu Bare Maxamed Fiido ka maqan yahay meesha anigoo ku hadlaya wakaaladda Fahda Soomaaliyeed maadaama uu maqan yahay aniga u guddoomay waa mahadsantiin waa kaaga mahadcelinayaa muddaantaas waxaa iskala jirnaa waxaan u yeerayaa hooyo Soomaaliyeed kana qayb qaadata barnaamij alle iyo barnaamijkii loogu talagalay midnimada Soomaalida mid dal iyo dibad ah una taago waqti walba sidii isugu keeni lahayd isuguna soo dhaweyn lahayd shacabka Soomaaliyeed meel walba joogaan waa hooyo Xaliima Soofe Faarax ku soo dhawow hooyo حاجة عم جلاعة حاجة ميدية أيام جلاعة ونسكت حوض شادوينك حاجة ميدية أيام جلاعة وحنويريا أنا كده ير كان غير قاطع برنامج كده عيوز وليبو جعل أرورية دبكة Soomaali dadka qurbaha dibadda Afrika ku nool soo aruuriya soo galiya YouTube-ka homepage-da warbaahinta waa Faisal Cabdisamed ku soo dhawow Faisal waxaan maleynaa shahaadadan uu siiyay ra'iisul wasaaraha كل واحد يقول لي مسنين تاي من هذا كتب كديبات سنين العاوية قارها تذكرنا قفلت أيوب بدينهم مركب واحد مهم سن قفك بين هذا كإنا نسكن حريصنا قبيل كي أحد من كتبنا عن صومالي نمو من وانا ما تسنتين أنت dhexdhexaad ka ah xajirka ahayd mar walba u taagan inay sii deyso online ama aragti toos ah oo mar walba baxda all saxaafada oo ah allsaxaafada.com Mr. Abdulqaadir Maxamed ku soo dhawow shahaadadan ay ku garteen ummadda Soomaaliyeed guddiga Soomaaliyeed ee dhalinyarada ee magaalada Aarhus ku soo dhawow mudane waxaan u yeerayaa shahaadadan la siinayaa Akantus shaqo barnaamijkaas oo u qaadi doonto Mulki Xuseen waxa uu job for milli waxa la shaqo raadinta bulshada Soomaaliyeed sidii ay suuqa shaqada ku gali lahaayeen iyo waliba mashruuc kale oo soo kordhay oo la dhaho dib u dejinta ama dib u celinta wixii ku faahfaahin dheeraada ayaa marka kala xiriiraysiin waxaan u yeerayaa Mulki Cabdisamed ama Mulki Xuseen shaqo Akantus ku soo dhawow shahaadada والله حرام لنا dadku ina iswada naqaano laakiin waan ku faraxsanahay in maaragtay ummadda Soomaaliyeed maaragtay maanta xoogaa garasho ah
haddii dhinacayga loo soo fiirsho hawsha badan oo qabto mahadsantiin ballanteenu waa shaqo ballanteenu waa shaqo waa Muna Shariif Diana ku soo dhawow Muna بسم الله الرحمن الرحيم وحويان هرتا دبلومادا مالا بخيو قف انا متيسن لما سيو وانيغا وا شقيست iyo inta la siiyay waa shaqaysanay taas waxa way abal marinteeni Abdi Weli aniga ilaa idinku waxa ka hadlaysan meeshan 1 hour and half loo socday ilaa Muqdisho ayaan ugu tagay sida arintii noqoto Soomaaliya waqtigii August waxaan joogay doorashadii Muqdisho intaan ka duulay London marka waan soo halganay Abdi Weli aniga waan u gabiyay waxaan iri Abdi Weli geesi baa tahay haliyay aan gadaal marinay gaasow geesi baa tahay haliyay aan gadaal marinay geediga hayaankiyo adan gaabin socodkii roadmapka adiga gudbo qaran guddoonsiiyay geediga hayaankiya adan gaabin socodkii Abdi Weli godob sokeeyana ma qabo maal la muugurano garaadada cilmiga BH baa guudka ku surane Abdi Weli gacaladaadi oo dhan Abdi Weli waxa ku guntaday gacaladaadi iyo gobolada dalkeena ku jecel ceel cad gabigeede godan laba wardheer iyo jigjiga gooni ku wadiyo galkaciyo nugaaliya baraagaarka ka qabane Abdi Weli galka nooga talbeerka gudihiisa gacanteena midig baa too waa ku garansiine gayigana adaa qaban haduu guula ku qorayo garta aabahaba yaqiinkaas awoogaay ubax wada girina Abdi lagu guddoonsiine daldal maaha aada ugu mahadinaya maanta ina gacanta midigta Abdi Weli ku helay award for excellent diploma waxa shahaadada mutestay nin deenisha maanta meesha ma joogo waa journaliste mar walba oo ay dib dhacdo ama mar walba oo qof la soo dhaweynayo jecel bixiya press release ama waxyaalahaas markino wargelinta waa magaciisana waxa la yiraahdaa Ule Jensen journalistas waqtigan xaadirka meesha ma uu joogo John F Kennedy ayaa yiri markuu tartamayay isweydii waxa Ameerika u qaban kartid hay weydiinina ama hay isweydiinina waxa Ameerika ku qaban kartay maalintuu yiri Abdi Weli Maxamed Gaas aniga waxaan u taaganahay badbaado qaran kalmadaas ay ila mid tahay aad iyo aad u mahadsantahay xasuus waxa ku abuurtay qalbigayga aan ku celin waa taas anoo taas haya maalintuu hanka weynka ugu jira dhahay mas'uuliyadda Soomaaliya haduu qabanaya wuxuu yiri hal oo oday isbedelka aniga meesha ka tagay samarkana wax ay diinteena ku jirta aad u maadsanyahay Abdullaahi oo u qaaday Ule Jensen the last ama mid ugu dambaysa shahaadada ugu dambaysa afkayga ma ahan afkayga oo ay ku hadlaan shahaadada ugu dambaysa waxa mutestay ururkii qabanqaabiye hawsha kuna marti qaaday Prime Minister hore inuu halkaan imaado suurana galiyay shaqo badan iyo hawl badanna dhabarka urutay waa ururka Somali Community Denmark waa ururka uu madaxda ka yahay Cabdisheekh Sheekh Maxamuud Siyaasi waxaan leeyahay mudane shahaadadan iga guddoon kuna wareejiyay maamulaha naga ama ninkan matalaya waxaan u marayaa malaha maartay barnaamijka caawinka waa barnaamij aad u xiiso badan dadku aad bay faraxsan yihiin dadku aad bay uga soo qayb galeen waqti badan bayna siiyeen marka anigu waxaan ku maasanayaa shahaadada maanta gudoomo laakiin shirku waxaan loo xiri doonaa matooto aan rabaa inaan mahad celin u celiyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed waqtigeeda qaaliga usoo siiyey Prime Minister hore Abdi Weli Maxamed Gaas iyo Somali Community oo shirkan qaban qaabisay waxaan jeclahay inaan dhaho tan iyo kulanti dambe wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh wa anigu Cabdiraxmaan Axmed Shariif